iyadoo ay maalinta 1 bisha May ay ku astaysan tahay guud ahaan adduunweynaha maalinta caalamiga ee shaqaalaha adduunka isla markaasina maalintan oo kale ay fasax yihiin dhammaan shaqaalaweynaha adduunku ayaa meelo badan oo adduunka kamid ah waxa cabashooyin waaweyn oo la xiriira shaqo la'aanta soo kordhaysa laga sameeyaa wadamo badan oo ay kamid yihiin wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba saasi lamida guud ahaan dalkii loo oran jiray Soomaaliya gaar ahaan Somaliland waxa ka jira shaqo la'aan aad u baahsan saasi oo ay tahay ayaa dhalinyarada ku nool magaalada Boorama waxay si gaar ah uga sii cabanayaan inay hayso shaqo la'aanta ugu badan ee ka jirta guud ahaan Somaliland haddaba maraan maanta makarafoonka la dhex marnay suuqyada magaalada Boorama ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo aan wax ka weydiinin maalinta caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee 1 May ay iyaga saameysay shaqooyinkoodii isla markaasina ay fasax yihiin ayay kaga jawaabeen sidan Bismillahir Rahmanir Rahiim maanta waa 1 May oo maalintii shaqaalaha adduunka fasaxa ahaa ee internationalka dhammaan caalamka oo dhan waxaan ku oran lahaa horta reer Boorama maalin walba oo 1 May maalin kasta berri oo 2 May anagoo noo 1 May 3 bisha noo 1 May 4 bisha noo 1 May 9 abril noo 1 May laano meesha shaqo ka socoto ayaa kala yeelatay 1 May iyo mataqaana 9 May iyo 3 May Boorama maalin kasta waa 1 May anigoo magacayga la Xuseen Cismaan Warsame waxaan maanta aan joognaa maalintii 1 May ee lagu magac daray maalinta shaqaalaha adduunka anu qodobka dhalinyarta ayaan anu keera xasuusin lahaa dadweynaha dhalinyarta anagu aan ka mid nahay waxa weeyaan waa dhalinyarta ugu aqoonta badan leh dhalinyaradaha Soomaaliyeed runtiina waxa weeyaan Boorama 80% haddaan badiyaba waxa weeyaan ma shaqeeyaan runtii weli hal qof oo si aanay toos u shaqeeyaan uma aragno أنا واحد كم ده هذا نيتي ما أعرف امتحانات كجالي خاصة وزارة المالية أرضي امتحان كفر استمع كم ده جامعات أنا قلت امتحان كي باس كريني أيان إلا حدنا أنا لو قادر شغال أنا يوم معي وين محمد حسين حراد كان لي بنت في الكيكة عند الميدة شغالة هدوكا روح الله يرضى قبل كعوضة لين نروح كذا طبعا أنا المقلب عن نقطة لأن مين اللي رايو شغالة هدوك واللي بيجي من النقطة سيديت بقول أوضة اللي يراه كوا جامعات كبحي كوا خورش كبحي كوا أرضية يقول السيادة كتهريب نفسه مشاريعها هيدا وكيران يدو جد منا أنكم من هذا ما طب مالتي شغالة هدوك مالتها شغالة هدوك وحي هيد مالين قيمة هذا لا كل واحد كسب بالعبتين دلك بريكا أو ضد بوقعي وكيران إلى نقطة مالين الحصول لكن قيمة هذا هيد ما هم مالين اللي قدر يمكريو سومالي لان مات especially قبل هذا أوضح ما اللي قدر يمكريو معه على بعضك وعدنا يروح كذا فقال له يدو حلقات صدق كل شغالة صدق ذي كل حلقة في باكها الرياض ترى وحوس صوابع يورد ما تشيك شوفتور وفي سري نظام كشغالة الله قادر يه صوت الله قادر يه جرش أقوات الله قادر يه قف وحي قابل الله قاطع وحي نقطة باتين الله قاطع قفكي يويهي ما أنت واحد ما أنتي شغالها الدونك laga xusayo dhammaan caalamka oo dhan Somaliland waxay xusaysaa maalinta shaqo la'aanta iyo xusaysaa Somaliland khaasatan gobolkan Awdal waxa jirta shaqo la'aan ballaaran ayaa ka jirta Somaliland dawladii hadda xukuumadda hadda haysata waxa ay ku koobtay shaqadii iyo cid ay shaqada siinayso wuxuu dhan reer bay ku koobtay reer baa ku koobtay dhammaan waxay ka dhigtay qabiil maanta وكودي مي ومالتي شغالة هدونك ما دام أيتها مالتي شغالة هدونك waxa ka jirta gobolka shaqo la'aan baahsan waxa ka jirta takoor ay ku sameynayso xukuumadda maanta joogta hada arinta caynkaas ee maaragtay halka taagan waxa jira cadaalad darro badan iyo eexya qaraabakiil ayaa lagu sameeyaa maaragtay gobolka Awdal siyaasiga Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee Somaliland ayaa isagu aragtidiisa ka dhibay maalinta 1 May iyo shaqaalaha Somaliland shaqaalaha waxa la bariyo soo shaqaalaha industriga loo sameeyay warshadaha ayaa loo sameeyay first May inaga ilaahay waxa uu saacaday in shaqaal abuurna weey in hada si ay dad ku qayb galo oo maalinta shaqaaluhu nafisaan waxa leeyahay laakiin inta shaqaysadana
xuquuqdooda hala siiyo xuquuqdooda hala siiyo waxaan leeyahay weliba anigu igu jiray barnaamijka dadka private u shaqeeya ka shaqeeya maqaaxya laga bilaabo meesha ku daaraa dhisiya in loo sameeyo sharci oo qofka markuu wax noqdo aan la tuurinay oo lana yoomiya laga jaray xeer ilaaliya oo inanka ilmaha qofka shaqada ka shaqeynaya ee subaxda quraacda dhigaya haddana habeenka cashada dhigaya ee more than 8 hours ka shaqeynaya in sharci loo sameeyo. Hashim Sheekh Umar Good, Somali Sat TV, Boorama.